daawadayaal ku soo dhawaada saxafi filim soo doga barateen barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada Bollywoodka filimada ka sameeya barnaamijkan waxa aynu kaga hadlaynaa jilaaga da'da yar ee lagu magacaabo Arjun Rampal. Arjun Rampal waxa uu ka mid yahay aktarada ku soo biiray jilitaanka filimada bilowgii sanadihii 2000. Aktarkan ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay markii uu filimka Faloob Garoobo eeda ugu badan waxa qaata buu yiri jilaaga ama atooraha atirishada filimka la daadihineysana wax eeda haba yaraatee ma qaadato. Aktarka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri haddii filimka qaab jilin wanaagsan oo aktarka soo bandhigo ha yeeshee atirishadu ay jiliinkee ay meesha la timid uusan ahayn mid wanaagsan eedaasi waxbay ka leedahay. hadalkaasi markii uu Arjun Rampal jeedinayay waxa sabab u ahaa filimkiisii ugu dambeeyay ee Gangster Saga ahaa ee Daadi markii uu ka Faloob Garoobay ayuu aktarkan waxa uu go'aan ku gaaray in uu ka fiirsado atirishada uu filimka la daadihinayo. waxa uuna eedaasi dusha ka saaray atirishooyinka waxa uu yiri qaladaadka ugu badan iyo saxa ugu badan ee filimkaasi hagaajin karaba intaba ayaga ayuu dhankooda ka yimaada. haddii gabadha filimka kula daadihinaysa ay tahay gabar aad isfahmi kartaan dabeecadaha iyo qaabjiliinka filimkaasi waxa suurtagal ayuu yiri in uu suuqa ka gadmo. haddaba jilaagan ayaa waxa uu ku fikirayaa in uu filim kale maalgeliyo filimkaasina waxa uu ugu magac daray Romcom. filimkan Romcom ee uu jilaagan rabo in uu maalgeliyo waxa uu yiri filimkan qisadiisu waxa ay noqon doontaa buu yiri sheeko jacayl oo qaybo badan oo dhalinyarada ka mid ah taaban doonta. haatan waxaan ka fikirayaa qaabkii aan u maalgelin lahaa ee ma ahan qaabkii aan actor uga noqon lahaa. waxa uu yiri filimkii hore ee Daadi producer iyo actor aniga ayaa intaba ka ahaa khasaare weyn waa uu iga soo gaaray. waxa uu yiri filimkaasi waxa uu ii ahaa 10 aan aniga qaatay. sidoo kale jilaaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in filimada comedy-ga iyo romantic-ga aba waxa uu yiri waxa door weyn ka ciyaara aktarada filimkaasi wax ka daadihinaysa. aktarkan ayaa waxa uu ka walwalsan yahay in filimka dambe ee uu keeni doono ee Romcom uu ka Faloob Garoobo sida filimka Daadi. aktarkan waxa uu sheegay in filimkan uu producer ama maalgeliye oo qura ka yahay balse aktarada jili doono ama hogaamiyaha aktarka ka noqon doono in uusan wali u xulin. aktarkan waxa uu sheegay in filimka Daadi markii tiyaatarada la saaray buu yiri gobolada koonfureed ee dalkaasi Hindiya badankoodba ay diideen in filimkaasi laga sii daayo iyaga oo sheegay in filimkaasi markii ay muuqaaladiisa ama sheekooyinkiisa qaar ka mid ah ay soo gaareen wax nuxura uusan lahayn. waxa ayna arintaasi ugu noqotay buu yiri arin la yaab leh. producer-kan iyo actor-kan ayaa hadalkiisa sii watay waxa uu yiri filimkaasi maadaama box office-ka uu ku Faloob Garoobay waxa ay aniga ii ahayd buu yiri 10 waan noolahay buu yiri waxna waan ka bartay filimka Daadi laakiin filimka Romcom aad ayaan uga fikiri doonaa qaab jiliinka ay soo bandhigi doonaan dadka qaybaha ka noqon doona. haddaba daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay actor-ka caanka ee Arjun Rampal iyo filimkiisii Daadi ee ka Faloob Garoobay iyo midka haatan uu damacsan yahay inuu maalgeliye ka noqdo ee Romcom ayaynu barnaamijka kaga hadlaynay. barnaamijka waxaa idin daadihinayay aniga oo Caaqil Cabdi Faarax. waxaad ka daawanaysaan Saxafi Films oo ah channel-ka faallooda arrimaha Bollywoodka. inagoo isku duuban oo baada saxafina intaynu barnaamijkan lamid ku kulmayno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad gelyo.